تيكسي بودلان تابقات نغيي تيانتي تيكسي بودلان تابقات نغيي طبتا تاسن إيو قوشة وآلو ترتميا كلامين كان قاد نيبا قليا تاريخ دا أوجدكيو تلماما هداني ريتو سالينو تيانتي تيكسي بودلان تابقات نغيي تيانتي تيكسي بودلان تابقات نغيي طبتا تاسن إيو قوشة وآلو ترتميا كلامين كان قاد نيبا الرحمن الرحيم مدحوين كحيانك دولة بنتلان قدوميها محكمة السراء قولياش الدولة مرتي شرفتا فنانينتا صحافة ضي الضمان عيدما غالك سيدي أمنية نسوية انتا كالي ما انتا مرتدى النواة دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan halka tacsi uga dirayaa qarixii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho agaarka baarlamaanka oo dad abriya ay ku geeriyoodeen dhagar qabayaal aan dadka iyo dalka u naxayna ay geysteen waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u booqadhiyo runtii caawa waxaa ka soo wareegtay sanad maanta oo kaleeto markii aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka noola doorto hoggaanka dalka iyo dadka Puntland waxaan soo dhisnay xukuumad aan ku xulannay intii karaankeennaha karti iyo waxqabad aan ka rajaynayna insha allah waxaan aada ugu faraxsannahay muddadii sanadka ahayd guulihii iyo howlihii ay u qabteen ummadooda sida hagar la-aanta iyo hufnaanta ay u qabteen waxaa iyadana haddii ilaahay idmo khudbadayda kadib halka laga soo jeedin doonaa su-aalana laga weydiin doonaa qaybo ka mid ah wasaaradaha khaasatan eri dhinacyada aan ahmiyadda saarayn runtii waxaan rabaa intaan khudbadda aan aada u dhexgelin dhowr qodob oo arrimaha caamka inaan saaro xoogga waxaa qaraxaan maanta dhacay iyo kii 28 December ka dhacay isgoyska ex control labadaba uu ku abuuray bulshada Soomaaliyeed rugbi hor leh iyadoo la rajeynayo in aada looga soo kabto dhibaatooyinka amni iyo falalka noocaas oo kale ay ka dhaca meelayaasha halbowlaha ee bulshada Soomaaliyeed ku badan tahay marka lagu daro kii ka dhacay SYL iyo kan maanta dhacay labadaba midna wuxuu u dhowaa madaxtooyada midna wuxuu u dhowaa golihii baarlamaanka labadii meelood oo dalka Soomaaliya dowladda federaalka looga talinayay arrintaas runtii marka laga tago dadka wax gaareen waxay muujinaysaa amni xumo kusoo kordhaysa caasimadda Soomaaliya taasoo astaan u ah qarannimada Soomaaliya waxaan sidoo kale runtii maalmahan idaacadaha ka maqlaynay dowladda Soomaaliya guddiyo u saaraysa maalmaha xorriyadda ee 60 guurada soo socota iyo wasiir oranaya dalka oo dhan baa waxaan ka dhigi doonaa xaflado iyo maaragtay xusid waxaa nasiib darro ah in labadii meelood ay isu jiray halka wax ka yar dhowr boqol oo mitir ammaankeeda la sugu waayay arrintaas waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed inay si sax ah u eegaan marxaladda ay marayaan oo xaqiiqada in la wajaho ayaa qurxoon waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxyaabaha ka dhacaya caasimadda Muqdisho inaan indhaha laga laaban dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay tashadaan mustaqbalkooda ay ka taliyaan dadkooda maalin walba baaba'aya ay u istaagaan dadka reer Puntland waxaan
ugu baaqayaa inay kaalinta uga aadan badbaadinta qaranka soomaaliyeed inay ka qaataan goob walba iyo waqti kasta. xaaladda ammaan darro waxay sii muujinaysaa weeqid ku socota qarannimadii soomaaliya intii yareed ay leegleelayay. waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idin ka dhigo arrimaha kan oo salka ku hayn doona isbedelada hoggaanka siyaasadeed ee la filayo iyo doorashooyinka soo socda oo caqabadooda imaan doona. waxaan rabaa inaan usbuucyadii tegay waxyaabihii dhacay wax yar ka tilmaamo. waxaad ogtihiin baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare maalmihii u dambeysay waxaad maqlayseen waxay ansixinayaan xeerka badroolka. waxaan dowladda puntland haddaan nahay si cad oo dheer u sheegaynaa in arrintaas aqalka sare laga sixiyey iyo aqalka hoose la yidhaahda inay puntland qayb ka ahayd. waxaan ku ammaanayaa senatarada reer puntland ee markaa ku sugnaa inay shirkii isaga baxeen markii la baal maray procedurkii iyo habraacii xeerarka lagu ansixin jiray, iyadoo dalkii aan aragna ammaan darrada ka jirta, iyadoo aan aragno siyaasadda iyo meesha ku socoto, haddana in adduunka la jaha wareeriyo oo la yidhaahdo dalku waa fiican yahay, dabaaldegi iyo guddiyaashii baan qabanay, xeerarkii badroolka iyo dalka in ceelashiisa auction la geliyaa ayaan ka shaqaynaynaa. runtii wax isqaban kara ma aha. intaan in ka badanna kama sii aamusi karno khaladaadka socda ee jira. warqad rasmi ayay ka soo saari doontaa dowladda puntland, laakiin waxaan caddaynaynaa shirkii may ee halka la isugu yiri madaxda dowladaha federaalka xubnaha ka iyo dowladda federaalka. waxyaabaha ugu weyn oo shirkaasu la burburay waxaa kow ka ahaa sharciyada masiiriga ah ee dastuurku uu dhigayo in laga wada tashado, in la geliyo wada tashi sax ah oo dhab ah oo ugu horeysa hanaanka siyaasadeed ee dalku aadayo, hanaanka amniga loo sugayo, hanaanka khayraadka dalka loo qaybsanayo iyo dhammaan sidii dalka loo xasilin lahaa. runtii xukuumadda hadda maanta joogto way ka gaabsatay intaas oo dhan, waanay ka dhaga adeegtay runtii waxyaabihii iyo talooyinkii caalamkuna siinayay siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah badankoodan ay siinayeen. waxaana runtii khatar ah inay arrintaas keento burbur hor leh oo aan loo baahnayn. waxaan ka digaynaa in ay marlabaad soo noqoto hal hayskii oran jiray loo joojin maayo oo dadkuun iska socdo wuxuu raba iska samaysto. arrintaas ma dhici doonto. dalku waa dal la wada leeyahay, waa dal taladiisa loo siman yahay, waa dal wada tashi ku dhismay. waxaan rajaynaynaa in madaxda iyo hoggaanka sare ee dowladda federaalka ay dadkooda iyo mas-uuliyiinta talada la wadaagta ay talada qayb ka siiyaan oo aysan noqon talo ay keligood siday doonaan ay u maamulaan. waxaan caddaynaynaa barnaamijkaas badroolka inayna qayb ka ahayn puntland. waxaan u sheegaynaa caalamka iyo cidda ku fakeraysa inay heshiisyo aan loo dhammayn ay galaan. sidoo kaleeto xeerka doorashooyinka oo isna la baalmaray hanaankii wadatashiga iyo hanaankii ay ahayd in dalkan mustaqbalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah oo saldhigiisu ay tahay in lagu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed. arrintaas oo weli uu ka socdo dhaga adeyg iyo ismaqal la-aan talooyinka faraha badan ee ay soo jeedinayaan dadka waxgaradka ah iyo maamulada dowladaha xubnaha ka ah. arrintaasna waxaan rajaynaynaa inaan lagu sii socon dadka iyo dalka in la badbaadiyo. dadka soomaaliyeed iyo maamulada dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay gogol nabadeed iyo wada hadal ay furto, talada dalka ay dadka qayb geliso, la isugu yimaado sidii masiirka ummadda loo meel marin lahaa. sidoo kale waxaan u baahannahay dadka reer puntland marxaladda soo socota inay u diyaar garoobaan kaalinta ay ka leeyihiin hoggaaminta dalka iyo xasilintiisa qaybta kaga aadan inay qaataan. waxaan si kooban usoo bandhigi doonaa muddadaas sanadka ah runtii inkastoo heese macmacaan oo inta badan taabanayay wadaniyadda iyo xaqiiqada halka laga tiriyey, laakiin caawa ma ahayn habeen damaashaad iyo farxad.
wuxuu ahaa habeen shaqo oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo wixii qabsoomay dadweynuhuna ay ka farceliyaan waxaasi inay jiraan iyo inay jirin iyo meelaha turxaanta iyo tuhka ugu jiro ay weydiiyaan. saasuu barnaamijku u astaysnaa. waxaan aada uga mahad celinayaa fanaaniintii ku cabiray waxyaabo badan oo puntland ay u baahan tahay oo ay dadku si sahlan u fahmi karaan. waan uga mahad celinayaa. mudanayaal iyo muruweyn bilowgii xukuumaddan cusub waxay dejisay barnaamij siyaasadeed oo waafaqsan xaaladda dhaqan-dhaqaale iyo tan amni ee ka jirta puntland, taasoo godhin looga dhigay 866 howl shaqeed ee xukuumadda lagu doortay, iyadoo lagu falanqeeyey shirkii jihaynta siyaasadeed ee xukuumadda ee bishii March 2019. shirkaas waxaa lagu diyaariyey qorshe sanadeed leh halbeeg iyo ujeedooyin cayiman. muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddani jirtay wax badan ayaa noo qabsoomay oo ay ka mid yihiin sugidda amniga, horumarinta dhaqaalaha, dib u habeynta maamulka iyo maareynta maaliyadda, tayeynta shaqaalaha iyo ciidanka, dhiirigelinta maalgashiga, horumarinta kaabayaasha iyo adeegyada bulshada. waxaa caawa halkan idinkula wadaageynaa waxqabadkii xukuumadda oo kooban. dhinaca amniga, muddadii yareed ee xukuumaddan jirtay waxay ahmiyad weyn siisay dib u dhiska ciidanka, kaasoo muhiim u ah sugid amni la isku halleyn karo. waxaa la bilaabay dib u habeynta ciidamada daraawiishta, booliiska iyo nabad sugidda, iyadoo la dhisayo golayaal iyo guddiyo khibrad u leh arrimaha ciidanka si kor loogu qaado tayada howlfulineed ee ciidamada. waxaa dib loo howlgeliyey xarumaha tababarada iyadoo la dhisay lana dayactiray xeryaha tababarada ee Abqaale, Xorgoble, 54, Baran iyo Boocame. waxaa hadda si habsami leh u socda tirakoobka tayeynta iyo tababaridda ciidamada si loo helo ciidan cudud leh oo ku filan sugidda amniga iyo gudashada xuduudaha puntland. sida la wada socono waxaa horumar la taaban karo laga gaaray amniga iyo siyaasadda deegaanada gobolada Sanaag iyo Highland, iyadoo aan soo dhaweynay ciidamo, saraakiil iyo siyaasiyiin reer puntland ah oo garowsaday ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka dalkeenna. waxaa sidoo kale xukuumaddu leedahay mawaaqif siyaasi ah iyo kuwo amni oo lagu xaqiijinayo soo celinta deegaanada maqan. waxaan fursaddan fariin uga dirayaa cid kasta oo rabta midnimada iyo wadajirka dadka reer puntland inaan soo dhaweynayno annagoo siin doono doorka ay mudan yihiin. waxaan xusid gaar ah mudan inaan halkan ka sheego in puntland ay wada dhisteen dadka iyo waxgaradka, isimada, cuqaasha iyo siyaasiyiinta u dhashay gobolada Sool, Sanaag, Mudug, Nugaal, Bari, Cayn, Highland, Karkaar iyo Gardafuul. sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah inay wada ilaashadaan midnimada iyo wada lahaanshaha puntland. horumarka dhaqaalaha iyo dib u habeynta maaliyadda, waxaanu dib u habeyn mugle ku sameynay nidaamka maamulka maaliyadda, taasoo noo sahashay inaan si joogto ah u bixino mushaharooyinka shaqaalaha, ciidamada iyo adeegyada howlfulineed ee dowladda, iyadoo loo marayo hanaanka casriga ah ee kharash bixinta. dhammaan shaqaalaha rayidka ah waxaa mushaharooyinkooda loo sii mariyaa akoon xisaabeed u gaar ah. waxaa sidoo kale dhowaan la soo gabagabayn doonaa hirgelinta hab xisaabeedka ciidanka. waxaan dejinay miisaaniyad sanadka 2020 taasoo lagu saleeyay dakhliga la filayo iyo daraska deeqaha caalamiga. waxaa xusid mudan in habkii miisaaniyadda 2020 ay ka duwaneyd qaabkii hore loo diyaarin jiray, iyadoo dhammaan qoondooyinka deeqaha iyo mashaariicda horumareed lagu daray miisaaniyadda. waxaa sidoo kale lagu daray qoondo miisaaniyad oo u gaar ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, amniga, dhalinyarada, haweenka iyo adeegyada aasaasiga oo horey ugu jirjirno oo 13%. waxaa dib u habeyn iyo tayeyn lagu sameeyey nidaamka dakhli ururinta, iyadoo xoogga la saari doono dardargelinta howlaha canshuuraha beriga, kastamka iyo abuuridda ilo dakhli oo cusub si loo xaqiijiyo adeega garoomada diyaaradaha Boosaaso iyo Garowe. waxaa dowladda is-afgarad la gashay 2 shirkadood oo caalami ah oo ballaarin ku sameyn doona dhismaha 2 garoon
waxaana sidoo kale xusid mudan in puntland ka bilowdeen duulimaadyo caalami ah taasoo sahashay isku socodka dadka iyo gudaha iyo dibadda waxayna saameyn ku yeelatay kororka dhaqaalaha waxaana sidoo kale la dhagax dhigay dhismaha cusub ee garoonka gaalkacyo waxaa sahan xog ururina lagu sameeyey wadooyinka roobabka ay waxyeeleeyeen ee wadada garowe boosaaso garowe laascaanood kuwaas oo aan muddo dheer dayactir lagu sameyn si wadooyinkaas wax looga qabto waxaa shirkadda CCECC lagula heshiiyey dayactirka wadooyinkaas waxaana ka helnay kaalmo dhaqaale oo dhan 2 milyan dowladda imaaraadka inkastoo dhaqaalahaas aysan ku filnayn shaqada la qabanayo dowladdu waxay miisaaniyad ugu dartay qoonda miisaaniyad oo dheeri ah waxaana haatan la bilaabay wejigii koowaad ee dayactirka wadada garowe boosaaso iyadoo ay xigi doonto wejiga labaad ee wadada garowe laascaanood wadada garowe gaalkacyo oo horey heshiiskii lagu dayactirayay u fashilmay waxaa dowladdu intii lagu guda jiray sanadka 2019 ay ku guuleysatay in dib loo soo nooleeyo laguna wareejiyo midowda yurub iyo hay-adaha cusub iyaga oo midowda yurub iyo bangiga horumarinta africa u qoondeeyeen dhaqaalo kor u dhaafaya 20 milyan marka mashruucaas laysku daro oo 2 weji kale ah waxaa la bixin doonaa qandaraaska dayactirka wadada bilowga sanadkan qeybta hore waxay dowladdu bixinaysaa kharashaadkii dayactirka wadada lixsinka ee 35 kilomitir dherarkeedu yahay oo lixsin ah waxaa guul ku dhammaaday dhismaha 13 kilomitir oo wadooyin laami ah oo qeyb ka ah horumarinta qeybaha ka mid ah degmooyinka puntland waxaa si gaar ah uga faa'iidaystay magaalooyinka garowe qardho boosaaso jariiban gaalkacyo galdogob iyo buurtinle dhismaha wejiga labaad ee dekada garacad ayaa maraya meel wanaagsan ilaa iyo 128 mitir ayaa gudaha loo galay taasoo ka dhigan in marka la gaalo 300 mitir gudaha badda ay suurogalayso inay ku sixrin karaan doonyo iyo maraakiib nooca dhexe ah mashruuca dhismaha degmada garacad ee dekada garacad ayaa muhiimad gaar u leh kobaca dhaqaalaha waxaa la daahfuray 3 mashruuc oo waaweyn oo ugu muhiimsan horumarinta kuwaasoo inta badan lagu soo koobay filimkii halka aad ka dheegateen sidoo kaleeto waxaa puntland ay qabatay sida la wada socota shirkii maalgashiga ee 2000 iyo September 2019 kaasoo inta badan ay kasoo qaybgaleen 130 shirkadood oo lacag 400 milyan ka badan ay ku deeqeen runtii waxyaabaha u qabsoomay dowladdan aad bay u fara badan yihiin iyadoo aynu ognahay in korontadana sidoo kaleeto mashaariicda korontada magaalooyinka boosaaso iyo magaalooyinka waaweynba aan heshiisyo afkarada la galnay shirkado iyo sanduuqyo horumarineed oo naga caawin doona khaasatan korontada boosaaso waxaa kaloo daraasadeeda socota iyo ballaarinteeda iyo in nalaga caawiyo magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo iyo magaalooyin kaleeto ee waaweyn ee baran iyo meelaha la mid ah muddadii hadda la jiray waxaan xoogga saarnay magaalooyinka ka leexsan waddada waxaa la tegay dhammaan degmooyinka puntland ee suuragalka in la tago marka laga reebo dhowr magaalo oo laascaanood iyo xudun ay ka mid tahay inta kale deegaanada boocame buuhoode iyo dhammaan deegaanada sanaag oo dhan wasiirada iyo dowladdu intooda badan safar ayay ku mareen ay ugu xogogol xaarayeen xaaladda dhabta ay jirta waxaa korac ku dhacay dhoofka xoolaha oo runtii suuqyo cusub oo hore nooga xirnaa oo suuq imaaraadka uu ka mid yahay lagu guulaystay waxaa kaloo lagu qabtay shir aada u weyn oo Somali Fishery Forum oo ay kasoo qayb galeen wadamo aada u fara badan iyo dad 350 qof oo ka kala yimid Soomaaliya iyo dibaddaba ay ka qayb galeen si ay horumarkaas qayb uga qaataan horumarinta siyaasadda iyo maamul wanaagga ayaa iyadana qayb ka mid ah waxyaabihii la qabtay waxaa la dardargeliyey baahinta maamulka iyadoo la dhisay golayaasha deegaanka 8 degmo sarana loo qaaday ka qaybgalka haweenka ee qaybaha kale ee bulshada waxaa bilihii ugu horeeyay xukuumaddan la bilaabay barnaamijka dimuqraadiyiinta puntland iyadoo la dhisay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan
guddiga doorashooyinku waxay fureen qorshaha hirgelinta barnaamijka doorashooyinka kaasoo si rasmi ah u furan tahay isdiiwaangelinta ururada siyaasadeed waxaana xusid badan in dowladdu ay qoondaysay miisaaniyad ka badan qoondadii hore ee xukuumadda waxayna dowladdu furanaysaa urur siyaasadeed waxaana lagu guda jiraa diyaarinta howlaha dhismaha ururka waxaana insha allah bisha labaad ee sanadkan lagu dhawaaqi doonaa ururkaas oo dhammaystiran qorshihiisa iyo magaciisa waxaana rajeynayaa inta halka fadhida iyo inta kaleete waxaan ugu baaqayaa inay ururkaas ka soo qayb galaan wixii iska diidana waa iska ogolnaa waa la tartami doonaa kuwo badanoo diidaya anaa ogo inta ku jiro waxaan rajeynaynaa inaan dhiirigelin dimuqraadiyadda iyo tartanka waxaan aada iyo aada xoogga u saareenaa oo dhabnaga ah in mashruucaas dimuqraadiyaddu uu hirgalo haddii ilaahay idan ka dhigo waxaana bulshada reer puntland oo muddo badan ku taamaysa oo aan isdhihi karno marka aan fasirayno tayeyn iyo tigs waxaa kusoo koobnaa puntland wixii aan ugu nimid oo 20 sano ay dhisaysana inaan tayeyno tiigsiga ugu weyn ay tabaysana waa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda labadaas ayaa tiigsigeena saldhig u ah waxaa xusid mudan in lagu guulaystay dadaal dheer la geliyey kadib in dib loo furay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda dib u furidda maxadkaas waxa uu muhiimad gaar u leeyahay tayeynta iyo sare u qaadidda aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha dowladda inta lagu guda jiray sanadka 2009 waxaa fursad tababaro ah helay shaqaale ka mid ah qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda si loo xaqiijiyo tayada garoomada kubadda cagta loona casriyeeyo waxaa dayactir iyo casriyeyn lagu sameeyey garoomada kubadda cagta oo weli socda garowga gaalkacyo boosaaso aan rajeynayna inay dhowaan sanadkan inta lagu jiro ay wada hirgalaan magaalooyinka kaleeto ee qorshaha ku jirana in xoogga la saari doono inagoo ka duwanayna siyaasadda xukuumadda ee ku aadan horumarinta arrimaha dhallinyarada waxay xukuumaddu dadaal ugu jirtaa sameynta sanduuq horumarineed ee dhallinyarada kaas oo siyaasaddiisu iyo xeerarkiisa lagu maamuli lahaa hadda gacanta lagu hayo tani waxay qeyb ka tahay dadaal shaqo abuur ah oo lagu garab galayo dhallinyarada reer puntland waxaa xirfado kala duwan lagu tababaray dhallinyaro gaaraysa 1700 muddadii sanadka ahayd oo dhammaan gobollada puntland ah kuwaasoo qeyb ka mid ah lagu taalokuleeyey dhaqaalo iyo ay ku abuurtaan ganacsi yaryar tayeynta adeegyada bulshada waxay runtii aada wasaaradda waxbarashada ay kor u qaaday dhismaha fasalada dhismaha iskuullada kordhinta ka qaybgalka tacliinta da-yarta ah siinta dadka danyarta ah deeqo waxbarasho oo gudaha ah iyo iyadoo kor loo qaaday tirada waxbarashada dibadda heshay inkastoo caqabaad aada u fara badan ay puntland kasoo wajaheen wada shaqeynta dowladda federaalka oo runtii caqabad ku noqotay meeshay garab istaag u noqon lahayd horumarka federaalka inay mararka qaarkood ay ugu yimaadaan caqabado suuragal ka dhigi waaya in da-yarta reer puntland fursado waxbarasho ay heli waayaan laakiin taasi ma caajis gelin wasaaradda waxay ku guulaysatay heshiisiyo gaar ah inay la soo gasho wadamada qeybtood waxaan rajaynaynaa inta dhiban in ay haad u dhacaan dhinaca caafimaadka sidoo kaleeto waxyaabo badan baa laga qabtay adeegyadii baa kor loo qaaday dadka adeegyada ka faa'iidaysta sidaad filimka ku arkayseen oo 700 iyo xoogaa ahaan jira wuxuu marayaa 1 milyan iyo siyaado qof waxay taas muujinaysaa in goobo fara badan oo aan hore loo gaari jirin la gaaray la kordhiyey baraha caafimaadka iyo meelaha laga helo adeegyada caafimaadka sidoo kalena waxaan waqti gelinay dadka caafimaadkooda halka looga qaban waayo inaan u sahalno u fududayno wadamada ay tagaan waxaan hadda ku guuleysanay dalka indiya waxaan sidoo kale wada hadal la wadnaa dalka turkiga iyo dalal kaleeto si dalal meelaha hadda caafimaadka loo aado ay dadku u sahlanaato fiisaha iyo dalkugalka si ay u tagaan haddii ilaahay idinka dhigo caqabadahaasna aan suulin intii karaankeenna dhinaca biyaha runtii muddadii hadda xukuumaddan jirta waxaa la hirgeliyay 10 ceel waxaa muddo dhow noo qorsheysan in 20 ceel biyood oo kaleeto la furiyo soomaaliya waxay qaadatay sidoo kale arrimaha federaalka soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka waxaana sal u ah dastuurka qabyada ah
waxaana qorshuhu ahaa in la dhammaystiro ilaa iyo 2020 waxaa laga hadlaa in la dhammaystiro. waxaa muuqata inuu noqday mashruuc aan dhammaanayn. puntland waxay caddaynaysaa haddaba in aysan ku qanacsanayn nidaamka dib u eegista dastuurka oo ay ahayd inuu ku salaysnaado wada tashi iyo wada xaajood siyaasadeed oo loo dhan yahay, aanan fursad la siin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in ay ka wada hadlaan qodobada masiiriga ah ee u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo. runtii waxay dowladda federaalka iska indhatiraysaa arrinta dastuuriga ah ee faraysa in dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladaha federaalka masiirka dalka ay ka wada hadlaan oo ka heshiiyaan. maxaa yeelay federaaleyntu dalku markuu burburay oo kala tegay, sida dastuurku uu dhigayo state walba wuxuu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo, wuxuuna xaq u leeyahay dadkeedu inay taqriir masiir ay gaaraan haddii ay arki waayaan in maslaxadooda iyo danahooda ay ka arki waayaan. marka iyadoo puntland deganaansho haysata ayay waxay diyaar u tahay inay wax la qaybsato deegaanada kale ee soomaalida, laakiin dowladdii federaalka ay runtii waktiga iyo maalka iyo naftaba kusoo bixisay. waxaad moodaa hadba qofkii yimaaday inuu meeshuu rabo iskala aadayo. waxaan aada cod dheer ugu sheegaynaa in qawaaniinta iyo waxa lagu heshiiyey la ixtiraamo si isku haynta dadka soomaaliyeed loo ilaaliyo, ayna u horseedin in dad kaleeto falal maamul xumo oo ay geysteen mas-uuliyiin inay ku kallifaan inay soomaalinimadii iyo midnimadii ay shaki geliyaan sida hadda dadka qaybtiis ka dhacday. waxaan rajaynaynaa puntland inayn taas noqon doonin, laakiin waxaan rajaynaynaa in la saxo dadka mar walba hayo oo ay noqoto waxa uu ugu sareeyo sharciga oo lagu kala dambeynayo aysan noqon aragtida siyaasadeed iyo qofka madaxda markaa joogo. sidoo kaleeto lagama qaybgelin ergadii matalaysa dowladaha xubnaha kaha ee qeybta ka noqon lahayd guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. sida dastuurku dhigayo xubnaha ee shanta ah waxaa wehelin doona xubin dowladaha xubnaha ka ah. marka iyadoo aanan qodobkaas la buuxin dib u eegidda la sameeyo waxay noqonaysaa mid aan sharci ku dhisnayn. in dowladda federaalka iyadoo aan laga heshiin qodobada sida nidaamka doorashada, khayraad qaybsiga la meelmariyey sharciyo aan ku salaysnayn mabaadi'da federaaliga ah oo iyadana caqabad ku noqon doonto wadajirka iyo wada socodka dowladda soomaaliyeed. puntland waxay caddaynaysaa inay qeyb ka ahayn sharci aan lagala tashan, isla mar ahaantaasna saameyn masiirka dadka reer puntland. waxaa tusaale fiican u ah shuruucdii dhinaca maaliyadda ee muddo dheer laysku hayay. ugu dambeyn shirkii ka dhacay magaalada garowe ay isugu yimaadeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah oo khuburada dowlad kasta ay meeshaas timid. wixii lagu heshiiyey dowladda puntland si cad ayay u taageersantay. wixii heshiis aan ka galnay waan taageersan, laakiin wixii aanan heshiis laga gelin waa arrin aan ka fiirsanayno oo waktigeeda markii layska afgarto heshiis laga gaari doono. qodob aan lagu heshiin iyo qof aan ogolaansho laga helin layskuma dhaqi doono. marka arrintaas runtii cod dheer baan ku tilmaamaynaa. puntland waxay xalka u aragtaa wada hadal, in madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan. soomaaliya waxaa ka soo daashay isjiijiid siyaasadeed oo aan miro dhal ahayn. puntland waxay mar kasta caddaynaysaa in wada tashigu ay noqdaan kuwa wax ka soo baxaan, laakiin aysan noqon fursad sawir lagu wada galo. puntland waxay diyaar u tahay in aan martigelinno shirweyne wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan 2020, dhammaystirka dastuurka, qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ka ee dowladda federaalka inay puntland diyaar u tahay in ay martigeliso. waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kaloo lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wada hadal dhab ah oo saxa u jiro oo laysugu wada imaanayo. arrintaas runtii dowladda puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in ay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyey dalka ay ku hogaaminaysay wax ka beddesho, inuu caqliga taliyo, in muddada hartay cimri taga ceeb laguma soo ootiyaa la yidhi
aysan ceeb ku dhammaysan. marka waxaan rajaynaynaa inay wada hadalka iyo wada tashiga uu noqdo waddada saxda ah ee lagu gaari karo is-afgarad buuxda oo dalkan samata bixiya. puntland sidoo kale waxay wajahaysaa caqabado soo jireena ugu horeeyaan la dagaalanka argagixisada ku dhuumaaleysanaya buuraha galgalo iyo calbari, isku dheelitir la-aanta dakhliga iyo kharashka dowladda si ay u gudato waajibaadkeeda dastuuriga ah, shaqo la-aanta baahsan ee dhalinyarada. arrimahaas oo dhan waa caqabadaha u waaweyn ee marxaladda soo socota puntland ay wajihi doonto. waxaan ugu baaqayaa bulshada reer puntland iyadoo kaashanaysa cid kalla ah in ay caqabadaha hortaagan ee xagga amniga ah ay ka gudubto, iskuna tashato. waxyaabaha xukuumaddan ay ku naaloonayso ama tiigsanayso waxa weeye in ay isbarbar wado arrimaha amniga, arrimaha horumarinta, arrimaha kobaca dhaqaalaha iyo arrimaha dimuqraadiyeynta inay noqdaan kuwo mar wada fula, aysan noqon kuwo la kala sugo. waqti dheer ayay puntland ku qaadatay intii ay rajaynaysay inay marxaladaha qeybtood ka gudubto si ay marxalado cusub u bilowdo. aragtidaas aragti ka duwan ayay xukuumaddan qaadatay oo ah inay si midaysan u wada qabato. waxaan runtii sidoo kaleeto muddadaa sanadka ah oo golaha xukuumadda waxqabadkeeda aan soo sheegay barbar socday waxqabadka golaha baarlamaanka oo aan rajaynaya isagana inuu markiisa sheegi doono, maadaama ay tahay dastuuriyan hay-ad gaar ah oo madax bannaan. inkastoo anigu aan ahay xubinta ugu sarreysa dowladda puntland oo afkoodan ku hadli karo, waxaan uga mahad celinayaa muddadii sanadka ahayd inay shuruuc badan oo dalka wax ku ool u ah inay fuliyeen, in ay shuruuc badan ay dib u eegis ku sameeyeen, inay runtii wax aanan baarlamaanka federaalka uusan qaban oo ay qirayaan idaacadaha iyo bulshadoo dhan inay xilliga ay shaqeynayaan maana xilliga kaleeto ay kormeer ku tagaan dhammaan hay-adaha dowladda. waxaad arkayseen guddiyo kala duwan ee boosaaso marayay ilaa iyo garacad kuwa maalin dhowe tegayay, magaalooyinka ugu fogfog ilaa iyo kuwa hoode baran iyo bari qeybaheeda dhan gardafuul. runtii golahan baarlamaanka waa golo dhalinyaro firfircoon, waxay kulli dul istaageen shaqooyinka ka socday iyagoo dadka batalaya, soo qaadaya codkooda. waxay si habsamiya ugu soo gudbiyaan dowladdu. waxay dowladdu ku darsataa qorshe howleedka ay markaa gacanta ku hayso. wixii qabsoomay waan ku faraxsannahay, waxa qabyada ah waan u taagannahay haddii ilaahay idmo. wixii u baahan wada tashi waxaan diyaar u nahay inaan dadka soomaaliyeed iyo dadka reer puntland la wadaagno. marka aan ka hadleyno waxqabadkeenna macnaheedu maaha dhaliil inaysan jirin. dhaliilo fara badan oo duruufuhu qaarna keeneen, qaarna bini aadan baa nahay khaladaad naga dhacay keeneen, intaba way jiri karaan. waxaanse u dayeynaa dadweynuhu maadaama xisbiye aysan jirin dhaliila oo maaragtay mucaarad ah, dadweynahan u dayeynaa dhaliishooda. waa dhici kartaa mararka qaarkood dowladdan in lagu xanto dhaliisha ma ogola, laakiin waxaan idiin sheegaynaa dhaliisha aad baan u ogolnahay constructive-ka. waxaa la rabaa inay dadka isaga khaldamin maadaama muddo dheer dowlad la-aan jirin. ilaalinta sharciga dowladeed iyo dhaliilidda xukuumadda farqi baa u dhexeeya. marka waxaa dhici karta mararka qaarkood xeerar iyo sharciyo aan la fulin jirin inaan anagu practice garayn oo dhici karta. marka naftirkeedu waxay ka mid tahay tayeynta sharcigaani baraynaa naftirkeeda. tayeynta dalkay ka mid tahay haddii qof xadgudtay uu sharcigu qabto ma aha wax kale. marka tayeyntu meelo badan bay geli doontaa, shaqaalaha iyo ciidanka keliya ma aha. marka dadweynaha ruuxaddooda in la toosiyay u baahan yihiin. waxaan rajaynaynaa mar walba waxaan iska ilaalinaynaa, waxaan la tashanaa tallaabo kastoo aan qaadayno, xeer kastoo aan gudbinayno, sharci kastoo aan samaynayno. runtii la taliyaal sharci baan leenahay. dowladdu la taliyaal aada u fara badan baa baryahan la shaqeeya oo qeybo kala duwan ah. waxaan aada ugu dadaalnaa inaan daldalool qaanuuniga aana laga soo gelin haddii la hayno. aada baan uga dhiifoonnahay taas. hadday wax naga khaldamaanna waa qabsooba ognahay, laakiin haddaan sax ku taagannahay waa ku adkaysanayna qodobka dastuuriga iyo waxa sharciga haddii ilahay idinka dhigo.
taas marka aan samaynayno waa waajibaadkii noola doortay waa waxa dadkeenna danta ugu jirto dadkeennan waxay u baahan yihiin dowlad ay wada leeyihiin oo danta caamka ah ka shaqaysa wada lahaanshaha mararka qaarkood waxaan arkaa dad si khaldan u fahmaya waxaan marar qaarkood i yimaada dad iweydiinaya dimaan aysan xaq u lahayn oo markaad u diidid la yidhahdana waxay leeyahay soo dowladda ma wada lihin hadda dowladda haddaan leen dowladda shuruuci nidaam ku dhisan tahay ma masaga kaa xantoobiyaa waxaa meesha yaala ya marka taas nafsirkeedu waxay ka mid tahay caqabadaha aan la kulanno maalin kasta runtii waan dareensannahay oo dadku waa dadkeenni duruufo dheer bay soo mareen habkii dowladnimo oo muddo badan la ilaaway oo siyaabo kaleeto xaal mastuur oo duruufuhu keeneen oo aanan ku runtii waktigeediis aan ku dhaliilayn ayaa jiray laakiin maanta fursad baan haysanaa aan sixi karno wixii naga khaldanaa si tartiib ah marka waxaan rajaynayaa sixidda wixii suuragal ah inaan la isku nicin wixii aan suuragal ahayn waktigaa u daynaynaa ama sanadaha dambe aan sixi doona ama cidda naga dambaysaa sixayso laakiin wixii markaas aan u aragno inaan sixi karno waxaan aada ugu dadaalaynaa inaan ilaalino marka aan ka hadlayno maaraynta maaliyadda dhibaato badan baa naga soo wajahay waxaad ogtihiin muddadaas sanadka ah puntland waxaan ku guulaysanay inaan xakamayno kharash aan ahayn kharash suuragal ah waxaan aada u beeqaaminay kharashka waxaan aada ugu dadaalnay ilaaha dakhliga aan haysano inaan ku far adayno oo idinka ka arkaya kobaca dakhligu 12% buu kor u kacay sidoo kaleeto kharashkii 2019 lagu lahaa waa dhici kartaa inay meelo wax ka maqan yihiin laakiin dad laga joojiyo mushaharooyinka marka laga tago waa la kabargaray waxay ku timid ku dhaqanka miisaaniyadda iyo dib u habaynta shuruucda maaliyadeed ee dalku lahaa laakiin intaas waxaa ka jiri kara caqabado badan oo runtii mararka qaarkood ay dadku u arkaan inaysan sax ahayn laakiin waxaa anigu kalsoonahay haddii dakhliga yar ee dowladda soo gala sidiisa loo qabto oo nabadgelyada la sugo oo sharciga iyo kala dambeynta uu horumaro dalkan waxaa soo galaya lacag aada u fara badan oo flow ah oo investment ka timaada oo dhinacyo kale ka timaada waxaan runtii aada ugu faraxsannahay dhammaan hay-adaha iyo dalalka puntland deeqaha siiyey 2019 waxay kulligood noogu wada hambaleeyeen sida loo hufan ee loo maamulay waxayna noo ballan qaadeen intii ay sanadkii 19 na siiyeen ka badan ay sanadkan siin doon oo ugu dambeeyey safiirkii hadda ka kacay oo Finland oo maanta laga joogo waxaan marka aan ku adkaanayno nidaamka maaliyadda waxaan qowdareynaynaa in aan dhaqaalaha fara badan aan heli doono haddii aan raacno habka maaliyadda ee sugan ee saxda ah challenge-ga kale aadka noo haysta ama caqabadaha ugu waaweyn waa caqabadaha xagga ciidamada ka jira oo runtii duruuf aada u adag ku shaqeeya dalka oo furmo badan ku furan yihiin deegaano dalka ka maqan ciidamadaas oo muddo dheer ku jiray dhufayshada maaragtay runtii cadowga waxaa uga garaabeynaa duruufta adag iyo waqtiga ay ku shaqeynayeen waxaa runtii aada isugu adag tayeyntooda tababarka maxaa yeelay furmihii in laga soo saaro dhibaatadooda leeyihiin tirakoobkooda oo runtii ay khaladaad jiri karaan loo qaateen ah laakiin aan u baahannahay inaan ku bareerno annaga oo difaaca adkeynayna haddana inaan wax badan oo dhinaca ciidanka saarno ma dhaliileyna ciidankeenna habaca ku jira waa wax aan garaabi karno oo duruufihii iyo dagaaladii dheeraa ay sababeen laakiin haddana kuma eegan karno inay sidaa iska sii ahaadaan waxaan u baahannahay si ay ku jirto xikmad inaan uga gudubno waxaa runtii hadda socda qaybihii ugu horreeyay la dhameeyey iyagana in biometriga lagu sameeyo si aan u hubinno in ay gaartay qofkii saxda ahaa xuquuqdiisi habacii faraha badnaa iyo maamul xumadii waxay dhashay in dad fara badan xuquuq aysan lahayn ay bursadaan xaqiiqada inaan wajahnaan rabno waxba aanan ka xishoon waxa dhunta ah laakiin waxaan u baahannahay inaan saxnaan rabnaa marka dadkii waxaas
ay ka dhaceen haddii shalay laga sii jeeday hadda waa lagu soo jeedaa waxaan rajaynaynaa inay nala qaataan siyaasadda cusub wixii tegey cafallahu cala salaf waxba inay qaban mayna hadda nala jaan qaado haddii ay laakiin haddii ay diidaan inay nala jaan qaadi waayaan annaguna waa tashanaynaa haddii lahayn marka insha allah waxaan rajaynaynaa oo qodobka 2020ka xoog aan saarayno waa tayeynta dhinaca ciidamada dhinaca shaqaalaha waxaad arkayseen 4300 iyo dhowr iyo toban in la soo gudbiyey shaqaalaha beel roor ku jiray sanadkii u dambeeyay aan mushaharka siinaynin 7,000 oo qof waa ka badnaa ilaa hadda intaa diiwaan gelin waa intaas fursad beel kale aan siinayna haddii diiwaan gelin waayaan waa waxaan jirin oo de kolley fursad bay noo banaynayaan sida loo maarayn doono dakhliga halkaa kasoo noqdo waa dowladda u yaallaa waxaa kaloo iyadana dib loo eegi doonaa tiradaa ruuxadeeda tayadooda waxaa kaloo la ansixiyey xeerka howlgabka oo dadka gaboobay runtii aan rajeynayno in loo helo xal inta aan xalka loo helin ma rabno inaan dad muwaadiniina oo soo shaqeeyay inaan maaragtay shaqadii ka saarno iyagoo oonan meeshii aadi lahayn la helin sidoo kale ciidamada waxaan rabnaa inaan dib u habayno agoomaha dadka dhaawaca iyo dadka gaboobay iyagana marka aan leenahay waxbaan tayeynayna macnaheedu maaha dadkii hore inaanan karaamadooda iyo sharaftooda aan ilaalinayn inkastoo dowladdan ay aada u adag tahay inay noqoto dowlad welfare ah laakiin haddana intii aan kari karno waxaan rajaynaynaa inaan qofna aanan ku dulmin inuu xuquuq helo intii karaankeenna ah laakiin macnaheedu ma noqonayso in meesha la iska taagnaado si dalkii uu curyaamo dalkan kolley wuxuu u baahan yahay dhiig cusub wuxuu u baahan yahay dad dhallinyaro oo firfircoon wuxuu u baahan yahay aqoon wuxuu kaloo u baahan yahay xikmadda dhaqanka iyo waayeelka iyo waxgaradka isna inuu meesha ka bixin waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu noqdo sanad guulo la taaban kara aan wada gaarno dhammaan dadka reer puntland waxaan ka rajaynaynaa wixii wanaag aan sameynay inay nagu garab istaagaan dhaliilaha aan nahayna ay maaragtay naga toosiyaan qorshayaasha cusubna ay nala qaataan dhaliilahana si wanaagsan iyo waddo wanaagsan ay noo soo mariyaan oo aysan intaas facebookyada ka qaylin keliya marka waxaan rajaynaynaa in aan helno oon furno goobo lagu wada hadlo waxaan diyaar u nahay su-aal kasta oo mugdi ku jirto inaan ka jawaabno waxa aan qaban karno waan qabanayna wixii aan qaban karin waa inay soo bandhigayna haddii ilaah annagana waajib naguma aha waxaan awoodeenahay inaan dusha saarano waxaan uga mahadcelinayaa inta meesha halka fadhida fariinteyda ugu dambeysa waxaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa sanad cusub oo wanaagsan oo guulo dhinaca amniga iyo horumarka siyaasadda laga gaaro waxaan u rajaynayaa barwaaqadii sanadka geega soomaaliyed ka dhacday inuu ilaahay usii taam yeelo waxaan aada ugu rajaynayaa siyaasiyiinta dadka soomaaliyeed waxaan maanta halka uga dirayaa baaq in aan sida hadda dalku ku jirto la iska fiirsan dalku wuxuu u baahan yahay gurmad degdeg ah wuxuu u baahan yahay in xaqiiqada la wajaho wuxuu u baahan yahay qof walba wax ay la tahay intuu dhinac dhigto in miis wada hadal la isugu yimaado waxaan rajaynayaa midnimada iyo wadajirka ka badan waxaan halka sidoo kale uga baaqayaa dadka reer somaliland waxaan ugu baaqayaa midnimada soomaaliyeed inaysan dayicin soomaaliya ka mid noqdaan wixii xuquuq ay ka maqan waa xuquuq dadka soomaaliyeed ka wada maqan in ay ka waantoobaan oo iska daayaan in ay dadkoodii iyo walaalahoodii ka go-aan waxaan rabaa inay si dhab ah xaqiiqada u wajahaan waxaan diyaar u nahay haddaan reer puntland nahay inaan xaqiiqada kala hadalno waxaan rabnaa dadkeenna nabad baan u rabnaa degenaanshaan u rabnaa horumar baan u rabnaa dagaal iyo colaad ma rabno xuquuqda dadkan ay leeyihiinna waxaa la rabaa si midaysan in looga shaqeeyo waan ku kalsoonahay maalintay doonto ha noqotee inay hargeysiga garow isku mid noqon doonaan dar wada jiran ay noqon doonaan soomaaliya inteeda kaleetana ay midnimo iyo dowladnimo ay ku waari doonto in la kala tabto oo la kala cawdo waa wax dow ah laakiin waxaa la rabaa in la isqanciyo oo la wada hadlo taas ayaan runtii baaqeen iyo fariinteennu mar walba tahay waxaan rajaynaynaa dadka reer puntland
inay ilaashadaan midnimadooda degaanadooda iyo la noolaadaan dariskooda xuquuqda iyo xuduudaha puntland dastuurkeeda qeexaya waxay u baahan tahay xuduudaha puntland inay puntland ka taliso meelaha dastuurka uu qorayo ee aanan puntland dowladdeeda ay ka talin waa gaabis daliisheedana waa qaadanaynaa waana u tafaxeydanaynaa inay gaarto maamulkeena abdilaah waxaan rajeynaynaa degaanada somaliland iyo galmudug iyo dariskana ah waxaan iyagana ugu baaqaynaa nabad annagoo ilaashanayna xuduudaheena dastuuriga ah diyaarna u ah in wixii naga wada dhexeeya oo ah soomaalinimada wadajirka wax wada qabsiga inaan annagu mar walba gacanteena aan ka geysan doono sidii geyiga soomaaliyeed iyo geeska afrikaba loo nabadayn lahaa aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum halkii nabadi buuxo